Applying styles ka bilaabena waxaa style is a set of formatting characteristics. waa in formattingka la set gareeya sida tusaale fontiga oo kale, farta size-keeda oo kale, colorka, paragraph alignment iyo spacingka, waxyaabahaas in la sameeyo. waxaa leenahay applying styles that you can use waxaa isticmaali karta quickly si dhaqsi leh format inaad ku sameyso documentigaaga. In addition taas waxaa usii dheer to save you time, waxay ku save garaynaysaa waqtiga. Styles can help you keep formatting consistent throughout the document. marka documentigaaga in si joogto ah ugu isticmaasho ku suurtagelinaysaa. si aad u apply garaysid style using style gallery aad isticmaalaa select aad doortaa textiga aragti inaad ku apply garaysid. kadib waxaa leenahay home tab tagaysaa styles group, kadib waxaa ka doorataa desired style-ka u baahanta from the gallery. laba style aa jiro, style gallery iyo style pane. waxaa la yiraahdaa style gallery waa soo aragnay, style pane waa kana. markaa sameynaysa asaga waxaa leedahay home tab tagaysaa, kadib waxaa doorataa style group, kadibna dialog box launcher soo fur. The style pane opens on the right side dhanka midigta kaaga soo furan of the program window. select waxaa doorataa textiga aad rabtid inaad ku apply garaysid, kadib waxaa leenahay styles pane, kaliya waxaa leedahay desired style-ka u baahan tahay. sawirka noocaan oo kusoo baxay style pane markaa rabtid inaad isticmaasho. style gallery markaa isticmaalaysid sawirkiisa hore usoo aragnay. modify haddaa rabtid existing style hore u jira inaad wax ka bedeshid, waxaad tagaysaa style pane, right click waxaa leedahay style, kadibna modify, kadib shortcut menu kusoo baxayo. in the modify style dialog box kusoo baxayo make the desired changes ka u baahan tahay ku sameey and then click OK button. inaad isbedelada rabtid waxaa rabtid ka bedbedel, kadibna OK button leh. to create a new style aa leedahay kale haddaa rabtid inaad sameysid waxaa leenahay style pane, kadibna new style button, create new style ku dhufo, formatting dialog box kusoo baxayo. teb waxaa qortaa a name for a new style, magaca u bixi style-ka cusub aad rabtid inaad sameysid. in the name box select waxaa doorataa desired option-ka u baahan tahay and then click OK button ku dhufo. waxaan leenahay challenge yaa jiro test ama tijaabo aad ku sameynaysid. ilaa iyo hadda waxaa noo dhammaaday 3 section. section 3 oo dhammaan challenge-ga marka isku day kaliya sameey tijaabi word inaad soo baxsato. marka haddaa intaas isku dayidid waxaa leenahay section 3 intaas inuu eg yahay. marka practical sameynaynaa qoraal soo gashanaynaa. marka hore qoraalka sida loo soo geliyo hore usoo sheegnay equal round yaa leedahay, kadibna bracket furaysaa oo xiraysaa adoo shift qabanaya, kadibna enter leedahay. applying style diyaarsanaan rabnaa inaan isticmaalno. horta dooro meesha aad rabtid inaad isticmaalo. tusaale paragraph ku horeeya rabaa style inaan u sameeyo, waxaa leenahay waxyeelada saare in style gallery waxaa la qaybtaan, kadib waxaa imanaysaa home tab, kadibna waxaa doorataa qaybtaan groupkan styles ay ku qoran tahay, kadibna inta meeshaan yarta soo fur inuu styleskan diyaarsan midkaa rabtid isticmaal. tusaale midkaan oo kale haddaad doorto sidaanuu noqonaya. haddaa rabo mid kale waa dooran karaa ayadana sidaasoo noqonaya. sidoo kale noocyo badan ku jiro, midkaan oo kale iska isticmaalaya. waxaa sameyn kartaa style pane haddana inaad mid kale ka doorato style, kadibna qaybtan soo fur, kadib waxaad isticmaali kartaa styleska aad u baahan tahay. ayadana waxay leedahay styles kala duwan ay leedahay. marka style-ka aragtida ka isticmaali kartaa. waxaa jiro waxa la yiraahdo modify existing style hore u jira rabtaa inaad wax ka bedesho adoo joogo style pane-kaaga. tusaale style-ka hadda waxaa ku qoran emphasizes ku qoran, waxaa leenahay right click, kadibna modify, kadib waxaa leenahay waxaa ka bedbedelaynaa. tusaale waxaa leenahay farto kale noocan ka dhig, kadib waxaa leenahay midab iyo size-ka wax ka bedel, kadib waxaa leenahay midab waxaa u yeeshaa blue kadibna OK wuxuu sameeyey existing style waxaa sameeyey modify ku sameeyey. sidaas si lamida hadda style pane-ka wax ka bedelnay. style gallery haddaa imaado ayadana sidoo kale mid kamid inaad dooratay right click modify inaad dhahday sidaas si lamida magac wixii aad rabtid waa ka bedbedeli kartaa.
waxaa leenahay sidee loo sameeyaa style cusub adi aad leedahay oo kale. Waxaa leenahay style pane ka imaaneysaa. Style pane ka intii laga soo furaa waxaa kasoo furi kartaa qaybtan dialog box-kan ku dhufo kadibna style pane ka waa kana. Waxaa leenahay mid cusub rabaa inaan sameeyo new style meeshaan ku qoran tahay ku dhufo kadib waxaa leenahay style ka rabtid magaca u baxso. Waxaa leenahay my style u baxsanaa tusaale my style kadib waxaa leenahay farta nooca rabtid ka dhigo noocan kale kadib waxaa leenahay size-ka 12 ka dhig bold ka dhig kadibna okay dheh. my style waa diyaariyay sooma. hadda qoraalkan my style oo igu dabaqsaya haddaa hela saara kan kadibna my style aa ku dhufto wuxuu sameynaa style-ka aad diyaarsado igu sameey. marka qaabkaas waxaad sameyn kartaa style inaad ku sameysid. challenges-ka u dambeeyo waxaa isku daydaa nooc wixii aad soo sameynay dhan inaad dib u practice-sid oo hal documenti aad dhammaantood ku wada sameysid. cashirkeena intaasoo noogu egyahay waa mahadsantihiin.